Hello, السلام عليكم. آه، وهذه السلام يا كل جين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي السلام يا إن ولا عليه هيجي ويلا لي قبضة سلامة السلام كأدنكم سلامة حنا الله هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابلنتنا أهدبا وحيرا سود بالعلاق 9 دقيقة ميلهاس لكن واسكاني ومهد سنتين دمان انتين داوانيسا waxaan rabaa caawa inaan idin kala hadlo qodobka ah sidee isku caawiyi karnaa oo annaga isu gargaari karnaa dhexdeenna gargaarkaasi oo ah dhibaatooyinka annaga dhexdeenna ka dhaca ama na haysta waxaana taa keentay anaa mar walbaba horta arrimahan ka shaqaynaya dhowr jeer oo horena idinkala hadlay waxaa keentay markii anigu aan bixiyo waraysigii aan nolosheeda kaga hadlaayay ayaa waxaa dhacday oo gabadhii walaashay ahaydee wariyaha ahaydee bishaaro baando aan siiyey waraysiga 2 qaybooda hadda baxday oo babliga noqotay laakiin qayb 3aadaa dhiman ayaa waxaan ku sheegay wax aanan horey dadka ugu sheegin ama ula qaybsan dad ogna aanay jirin saas la ajligeed waxaan sheegay in hadda ka hor aan depressed noqday suicidalna aan noqday oo aan rabo inaan nafta iska jaro dad badanoo horaa jiray meelo badanoo hore aan ka sheegaa jiray oo dad soomaaliya iyo dadaan soomaali ahaynba ay ku xiraayeen oo ay ka mid yihiin certitude projectga la dhahaayo NHS mental health departmentiga oo iyaduna tira ka 4 jeer camal Birmingham iyo London ba laga casumay wax badanaa jira marar badanaa jira laakiin dadkiinan bulshada ahay iska faafsanee meel walba maaragtay jooga iyagoo waxba kama oga waxaan rabaa horta intaana u guda gelin barnaamijkeega inaan idin sheego ani waxaan ahay symbol astaanaan ahay aniga astaantaasna keligay ma ihiyo qof walba aan laakiin maadaama ani nafsadeeda anaa raba waxaan rabaa inaan isu sifeeyo ani astaanaan ahay astaan horta waxaan u ahay soomaalinimada ayaan astaan u ah oo waxaan ahay qof soomaali ah waxaan astaan u ahay haweenka soomaaliyeed oo waxaan ahay soomaaliyad waxaan astaan u ahay hooyooyinka soomaaliyeed oo waxaan ahay astaan oo hooyaan ah waxaan astaan u ahay kuwa qurbaha ku dhibaataysan oo ku nool oo haddana waxaan ahay qof nolosha ay qurbaha badda sidaan waddankan ku imid iyo sidaan ku noo iyo sida aan ku moodmooday ilaa iyo intaan muhiim ma aha qofba siduu ku yimid laakiin astaamahaas oo dhan oo la isku daray ayaan ahay hadda marka maxaan ah haddana waxaan ahay astaan cusub timbara cusuba ifuula hadda timbaraha cusuba ifuulan anaa diyaar u waana ku talagalay inaan idinla wadaago hadda marka maxaan haddana ahay astaanta hadda soo kororta waxaan ahay hooyo iyadoo qurbo joogta la dhibay dhibkii daraaddiisna ku xanuunsatay oo dhibkii ka survive garowday kadib markay caqligeeda aad u kaashatay kadibna guulaysatay waxaan muhiim u ahay astaanna u ahay marka kuwa weli dhibkii shalay aan ka baxay ku jira mugdina ku nool oo isla waad ku dhimanaysaan oo aan fahamsanayn wax alla iyo waxay sameeyaan sidaan beri ahaa ah ayaa aniga marka astaan u ahay so I am a symbol I am a symbol for my community bulshadayda ayaa astaan u ahay waxaa kaloo rabaa inaan idin sheego
sinis inta ay soo baxday anina nolosheyda idinka la hadla oo public nolosheyda laga dhigo gabadhaas walaashayda barnaamijkeeda noociisu cusub yahay oo weligii tv soomaaliyeed aan ka bixin haddana weliba luuqadda ingiriiska lagu soo tarjumi doono bishaara talk show waraysiga aniga iga qaada iyo waraysyada ka dambeeyaba lagu soo tarjumi doono si ay u fahmaan da'da soo koraysa ee Yurub, America, Australia, all the English speakers country ku dhalatay ee aan fahmaynin af Soomaaliga u fahmaan isla markaana ay u fahmaan dadka ajaanibta ee nolol nool oo ayagana xaq u leh oo yaaban oo annaga sidan fiiri mental health ummadda dhan ku dhaca laakiin mental health la isku ceebinayo Afrikaanta iyo in yaroo Carab ayuu ku haray run baan idin sheegayaa aniga waxaan ahay gabar muslimad ah oo waxyaabaha ay ku daawowdayna qayb ka mida ay ahaayeen faydkeeda iyo diinteeda ay aaminsaneed inay ku adadkaata waxaa aaminsanahay haddaa aniga diinteyda ka tegi lahaa inaan sii waalan lahaa saacaddan inaan ku jiri lahaa mental institution maanan gelin taas maxaa dhacay marka amar ilaahayay ku dhacday hase ahaatee waxaa iska yar qof inta soo fariisata dhaxda aniga waan xanuunsanahay dad badanaa yiri dadkii maxay ku dambeeyeen in laga daba qaato la fadeexeeyo la kalbeeyo meeshii ay markii hore joogeen meel ka daran la gaarsiiyo but that's not me aniga ma aha because aniga waxaa imid anoon xanuunsanayn oo fayoobaaday experiencegii iyo khibraddii wixii aniga igu dhacay aan ka helana ka faa'iidaystay oo mugdigii iyo noloshii cidhiidhiga ahayd u rogtay iftiin ilaahay idankiisa because wax kasta qadaray ku dhacaan anoon gaaloobin oon diinta ka bixin anoon waalan maryaha tuurin anoo ilmahayga waad aragtaan maalin walba gabar Soomaaliyeed baa meel ilmo looga goranayaa ilmo la iiga goranin anoo weli sharafteydii iyo sumcaddeydii iyo dadnimadeydii iyo professionalismkaygii wata ayaan ahay symbol marka horta inaad saas u fahamtaan rabaa waxaa idinka idinla hadlaaya waxaa waaye aan hadda xanuun ma ahaayo qofka xanuunsan hadda ani maaha laakiin waxaa xanuunsan kumanaan kale oo xilliga aan ka sheekaynayo aniga da'daydu intay ahayd kala barkeed ah waxaa maalin walba isoo waca horena ii soo wacaya laakiin hadda too much noqday gabdho ooyaya iyo wiilal ooyaya aniga gabdho ooyaya waan filanaya laakiin wiilal ooyaya maan filanaynin qaar aaba isku sheekaba iska nahayba isoo wacaayo oo isku sheeka nahay wax aan ilaahay unta ku kala duwannaha aanay lahayn oo iyaga shaqadana loo fariistay gurigana iyagana loo fariisto labadaba naagtiyaa u fadhida guriga midda kale abuse nin leema sameeyo nin iyo naag baa sameeyaan ogaada qofka uu ku dhacaya ma ku xirna gender ma ku xirna age ma ku xirna statue ma ku xirna kanaa lacag leh ma ku xirna kan lacag maaha if you just met oo ama maxay ahaatoo nolol ku darsid someone bad someone oo aan ixtiraam lahayn someone oo aan maaragta human ahayn someone naxariista alla ka siiba haddii alla wax kuugu daro waa lagu abuusaa ama lacag lahaa ama qorxoonow ama fil darow ama xoolo hayso ama faqri cagcad ahaw ama shaqo fiican hayso ama Yurub ku noolow ama meel kale ku noolow waa kugu dhacaysaa laakiin maxaan kaga gudbaynaa inaan dad islaamanaha oon qadarta aaminsannaha
waxaa aaminsannahay qadarta wixii ilaahay noo qoro inay nagu dhacayaan saas la ajligeed ma lagaa raajinayo lagaalana soo daahimaayo noloshayda mugdi badanaa soo maray mugdigaasna ima aanay badin dadaan waxba ay ahayn waxa ay baday dad midna shaqadii ii fadhiista midna guriga ii fadhiista saas la ajligeed half of labada nin ee aniga dhibaatada ii gasta mid ka mida jirkaygii u ahaa 3 caruura oo qurux badan oo laga yaabee markaa meelaha soo gelinaya sawirradooda inaa aragtaan ayuu iga dhalay oo aabbahood yahay waan ogahay inaanan ka astaahilin noloshaas waxa kaloon ogahay ama aan malaynayaa hadda inuu ka qoomamaynaayo oo u jeclaan lahaa haddii waqtiga dib loo celiyo in uu wax ka bedeli lahaa noloshayda waxa kaloo idin sheegayaa labaduba may ogeyn aniga inaan suicidal ahaa oo aan mar isku dayay inaan river Thames webiga Thames isku tuuro labadooduba hore umay ogeyn marka dadweynahiina idinku markaad ogaateen iyaguna ogaadeen maybe they are feeling sorry for themselves not me aniga sorry hadda ila iga dareemo uma baahni ani waa ka baxay dhibkii but maybe if they have a decent little bit of the sense hadday leeyihiin waxaa u malaynayaa oo u malaynaya una rajaynaya in ay maanta ka xun yihiin wixii ay igu sameeyaan laakiin idinka sababtaa idin la hadlaayo ani lacag idinkuma dul raadsado hayo xoolana idinkama rabo alxamdulilaahi adduunka waxa la yiri waxaad ku leedahay meelaha seexato iyo wax aad cunto iyo dhara hugato inta ilaahay waa isii waa haystaa meelaha seexda waa haystaa waxaa cuna waa haystaa alla igu irsaaqayo xalaashayda xoogay ku shaqaystay wax aan dhar aan hugtana waa haystaa saas la ajligeed waxa aniga igu waajiba inta ka dhima the rest of my life ina alxamdulilaahi dhaho ilaahay iska baryo ummadana u duceeyo caruurtaydana isha ka eego maadaama ay ii koreen aan dabagalo oo fiirfiiriyo oo la talayo oo tala waalidnimo because ilmihii hadda ilmo yaryar ma aha shalay ani markii la abusay ciyaal aad u yaryar ay ahaay caloosha isku banneey ahaay cafaayada ama baambarsad hadba u taqaano u wada xiran yihiin ay ahaay aniga waxaan ahaa qofkii i garanaaye xataa sawiradayda muuqayga isbedelay xilligaasaan ahaa haddaan yarahay oon qurxoonahay waa is ogah qofka waxaa la yidhi fildarradiisa iyo quruxdiisa waa inuu ogaado aniga fildarradayda iyo quruxdaydaba waa ogah xilligaas waa fildarnay waxaana u fildarnay waxay ahayd dhibaatada dhexda iga haysay ayaa dibadda u soo baxaysay laakiin hadda alxamdulilah shukr ilaaha uga shukri iyo mahadnaqaan no wan kale oon abaal uga haayo maanta meesha aan joogahay ma jirto iyo alla subxaana wa tacaala inuu aqligii aan ku badbaado aniga i geliyey oo uu iga yimid ilaa aniga meesha laygu dhibaatayna hooyadayna ma joogin aabahayna ma joogine caqligii ina aniga ilaahay anigii isu kay soo diray anigiibu wuxuu ii soo diray naftaydiibuu isla anigii ii soo diray si aan u badbaado waana badbaaday waayo hadda marka idinkeedii la hadlaa waxaa waaye boqolaalka gabdhood oo ooyaya oo isoo wacaaya aniga wallaahi baan ku dhaartay sheekada iigu calool xumada badneed waxay ahayd gabar 15 sano jirta aniga dadka private sigooda halkaan uga sheekayn maayo 15 years old already ilmo laga dhalay oo la gumaysanayo dhulkeediina joogta midaan ka sii xumaaday waxa waaye wadankii joogtaa wadankii ayay joogtaa saas la ajlageed barnaamijkan waxaa la yiraahdaa 2 barnaamij ayaa idin soo gudbin doonaa weekly mid waxaa la dhahaa macnaha nolosha waa barnaamij guud oo psychological ah midna waxaa la dhahaa faraxsanow ama be happy wuxuuna ku mid noqonayaa oo ku magac yahay mental health foundation aan aasaasay oo aniga aan aasaasay laakiin ay dad badan oo professionals ay igala shaqaynayaan oo wadankan ila degan iyo wadamo kale taba degan ay igala shaqaynayaan ayaa jira oo la yiraaho be happy ama faraxsanow saas la ajligeed
waa sad abgareeyey wax badanaa sad abgareeyey publican ka dhigi doonaa waxaa yeelan doonaa social media laakiin social mediaha si guud aan wax uga hadli doonaa meesha hadda idinkala hadlaya halkan xaggaasaan kasoo hadli doonaa marka dambe hase ahaatee waxaan rabaa inaan ka wada hadalno sida aan isku caawiyi karno caawinaada ugu horeysa oo qofka walaalkaaha u samey kartid waxa waaye horta inaad dhegaysatid dhegaysatid cabashadiisa inaad dhegaysatid xanuun haddii uu haayo in aad dhegaysatid in aad u dhagraaricisid inaad waqtigaaga qaaliga ah wax ka siisid inaad u turtid inaadan xanuunka ku caayin hadduu xanuunsan yahay inaad ku dhiirigeliso in uu doonto caawinaad qof professional ah like dhakhtar or something the first rule we can help each other is to help each other to talk inaa wada hadashin la hadlo hadalka ma aha waa la iscaayayo habartaasaan ha noqote hebelowsaan ha noqote maxayto reerkiinaa sidaan ahaa maaha waxaas mida kale waxaa ogaataan dumarow idinka dhanna isku reertihiin dadka isoo wacaaya aniga ragaa ku jiro oo wada ooyaaya oo bulinka lagu sameeye laakiin ragga bulinka lagu sameeyey badanaa waxay ka ooyayaan ma aha dhinaca guriga waxaa waaye dhinaca shaqada laakiin dumarka ooyaya waxay ka ooyayaan dhinaca guriga okay waxaa rabaa marka inaa ka fikirno kulligeen sida qofba qofka kale u caawiyi karo maalin walba alla iigu yeeraa ani waxaan ku shaqeeyaa wax la yidhaha mental health advocate aan ku shaqeeyaa hadda maalin walba alla iigu yeeraa meelaa lecture ka bixiyaa dad loo maleeyo inuu xanuunku haayo ama hadda ku soo socdo alla isugu keena dadkaas Soomaali keliya ma aha waxa ku jira dad ajaaniba waa la hadlaa ma qariyo taariikhdayda waxaa soo mara qofka u sheegaa sababtu waxay tahay statuskayga oo lagu dara taariikhdayda waa waxa browdka iga dhigay aniga browd baan ku noqday statuskayga status maxaa la dhahaa qofka kalaaskiisa iyo waxa uu yahay qofka kalaaskiisa iyo meesha uu joogo ya soo ani hadda waa hadli karaa hadalkayguna meel mar buu noqonayaa why because of my statuskayga dartiis hadalkayga meel mar ka dhigay ma aragteen qof wariyaha oo inta soo staago wiil iyo gabar dhahay aniga mental health problem ugu dhacay ma aragteen dada aniga saxaafada iiga waaweyn iiga aqoon badan iiga soo horeeyay ajo ama aragteen I am sure kala barkood inay xanuunsadeen laakiin ma ku dhiiri karaan ma sheegi karaan I'm glad marka I'm glad that I have a courage to tell my story whether it was a dark and whether it was a light waxa ku faraxsanahay inaan hadlay aniga aad baa ugu faraxsanahay waxa kaloon ku faraxsanahay oo aan salaadan tukadaba u duceeya bishaara baando waxa ugu duceeya hadday ida barnaamijkan la imaan lahayn oo haddana aniga idihi lahayn iga codsan lahayn inay igu bilowdo anigana aanan ka yeeli lahayn barnaamijkan hadduunan jiri lahayn ani ma hadli lahayn waa aan burnaa lahay leh daad koombadayda waa ii daboolnaa laheyd leh bisuxiig waa ii aan burnaa lahay waxa kaloon rabaa inaa idinkala hadla dadka guud ahaan marka la fiiriyo marka aamusan tahay waxaa qabta ma la ogo marka waa la malaynaa waa dhargan tahay lacag badanay qabtaa adduunya ku fadhidaa baabuur fiicanay wadataa guri fiicanay ku jirtaa they don't know they have no idea gudahaaga waxa aad tahay ma oga gudaha saa ka tahay ma oga aniga maanta waa idinla hadlay laakiin hadalkii weli horta barnaamijka waxaan ku bixiyay ciddida foodeeda ma dhammaan noloshayda intaa idin sheega ciddida foodeeda sida dadka ay u yaaban yihiin hadda markaan arkay waxaan bi isire bagaad ba uga reebtay show iyagaaba isku dhex yaaci lahaa haddaad waxoo dhan u sheegi lahayd marka waxaa ogaanay qof kasta waa aamusan yahay maahe
inta aniga sheega in ka badan oo qabaa ee ama qaaba u sheega ma yaqaan ama si uu yeela ma yaqaano ama wax uu suubiya ma yaqaano ama waa yaaban yahay ama waxaa kaloo rabaa inaan hal yar ka iraahdo dadka Soomaaliyeed marka la fiiriyo guud ahaan waa dad nugul oo masaakiin ah fulaye ah oon geesi ahayn fulaye markaan leeyahay kama wada fulaygii eebada iyo waranka la qaadanaya la dagaal tagaaya kama wada waxaan ka wadaa waxay fulaye ka yihiin ayaga ayaa isku caaya cudurka isku caayaan faqrinimada isku caayaan dhaliya ahaan iyo hilib bay isku caayaan qabyaalad bay isku caayaan saas la ajligeed waa fulayo waa cowards waay sababtu ma taqaanaa sababtu waxba qofka geesiga ah waa qofka hadla waay waa qofka marka laga gardaran yahay hadla oo muujiyo in laga gardaran yahay si oo rajeeya gardaradiis laga gardaran yahay markuu sheego in laga daaya gardaradaas laakiin qofka fulayga ah mana hadlo dhibtana kama baxo as a community aflagaada igama aha aniga anaa idinka mid ah waxa idinka tihiinaan ahay laakiin as a community ma nihin dad geesiyaal ah mana nihin dad run sheegaya waxaanu nahay dad munaafaqada ka jecel runta munaafiqiinaan nahay badankeedna sababtu ma taqaana waxaan munaafiqiin u nahay annagoo islaam sheeganayna ayaanan diintii sida ahayd ugu dhaqmaynin haya diintan maxaa ka dhex suubinaya say ahayn haddaada ugu dhaqmayn maxaa ka dhex samaynaya diintan saddexdii beri oo aniga waraysiga sida iiga qaaday abaayo waxaa ii soo dhacay kumaan kun oo messages oo emails it's confidential magacyadooda iyo inaan sheego isawiradooda hakaminta iigu cajiibka badan oo aan idinkana idinkula dhiiranaya raba inaan idinla sheergaraya waxa waaye ragga Soomaaliyeed waxaa ugu aqli xun kuwa carabaha ku nool yes waa ku soo celinaa waxaa ugu aqli xun kuwa carabaha ku nool oo dhan qoraalkooda baaragaraafka ugu horeeya anay igu abusaya hadda waa anigii dhibka sheegtay aniga hajuumaya aniga message-ka dambe u celinaya waxa waaye xagee walaal ku nooshahay wuxuu ku leeyahay Saudi Arabia Dubai Bahrain Qatar so you are an idiot yeah you are straight from hell idiot atahay or straight from hell atahay because why aniga abuse why aniga canaanane أحمقنimada dadka aad la noosha fiiri أحمقنimada dadka anigu mid carab islaan nimo uma caayaayo laakiin waxa uu caaya dhaqan xumadooda kuwii la noolaa bay effect ku yeeshaan ninka America igala soo xiriiraya wiilasha North America igala soo xiriiraya from Canada from USA hadal qataf iyo soo qorayaan wiilasha Soomaaliya igala soo xiriiraya hadal qataf iyo soo qoraya from Mogadishu from Somaliland Hargeysa Berbera whatever Borama Gabiley Djibouti from Jigjiga from Jubaland from Somaliland from Mahayatona Isha Koonfur Galbeed everywhere message iga yimid and they are descent sweet honey people way kii carabta joogay wallahi kuwa adeeraday ay saaxiib leeyihiin Facebook friends ay leeyihiin markaan galay aan arkay inay mutual friends nahay my uncle is my own uncle is saaxiib leeyihiin ani isu abusay amar afi hey warame waryaa islaanta waa ka gudubtay ani waa ka gudbay aniga islaantan waa ka gudubtay in lay aamusiyo in cafi leeyra in ha warame leeyra ani stage-keedu waa ka gudbay I am higher and I'm flying over your head so aniga mi aamusi kartay I'm here to make a change ani waxa haka u jooga ina isbedel sameeyo u jooga because I survived whatever happened to me back so good aniga
I'm alive. I am alive. I'm breathing every day. So I'm here. I want to make a change. gabdhaha masaakiinta iyo wiilasha masaakiinta weli abuseka ku jiro aniga rabaa inaa isbedel u sameeyo. So I am not giving a damn thing waxa adiga aaminsan tahay. So nimankiina carabaha jooga waa idin la hadlayaa. Si gobannimo iyo soomaalinimo ku jirtaa idin la hadlayaa. isbedel la imaada. axmaqnimada carabaha aad kula nooshay anaga noola imaanina. ani carab miihi. believe me, carab miihi aniga. magacayga aamina waxa waaye nabiga hooyadii laygu sameeyey calayhi salaatu wassalaam. nabiga hooyadii raalli allah ka noqde. muuse waa nabi muuse. aabbahay waxaa lagu sameeyey nabi muuse. weheliye waa magac soomaaliyeed. that means companion, kii wax wehelinaya. cadow waa magac soomaaliyeed, waa kii caddaa. jinaqow waa kii yaraa oo jabta yaraa. calasow na waa kii nadiifka ahaa. intaasoo isukay raacday. waa magac soomaali iyo magac islaami. so ani wax ka baxay ina ay aamusisid. ma aamusi kartid, mana kaa ogolaanayo. dadka kale iyo masaakiinta kale ina aamusid anaanba yeeleenba. anaa yeeleen anaanba every single day anaa usoo taagnaanaya in aan dadkaas la hadlo. gabdhahaas masaakiinteed 15 jiro, 16 jiro, 18 jiro ooyaya ay soo wacwaya. anoo ninkooda ku dirin, hooyadood ku dirin, dariskooda ku dirin, ehelkooda ku dirin, because qof iska hadlaysa ma ihie. qof professional aha ahay. and mental health professional mental health advocate haddana la baro psychotherapy. se psychotherapist u noqon lahayd barata ayaan ahay oo waxbarashada u socdo. within 2 years insha allah haddii ilaahay yirahdo I will get my license-kayga oo boodiga psychotherapy and counseling boodiga oo UK isin doona insha allah. kabacdina waxaa noqon doonaa qof si official u daweysa dadka. so aniga aboobayaal ha iila soo degdegina waxyaabaha qaarkood. ha iila imaanina. si akhlaaq lahaa idinla hadlaaya. ha iila imaanina waxyaabaha qaarkood. and I'm really very sorry ina isku wada idea noqotaan qoladihiina carabaha jooga. wiilasha fiican waa wiilasha suudaan wax ka barta oo emailada ay soo qoray because jaamacada ay ku jiraan. ayaga naftirkooda hadalkooda waxaa ku jira ha hadlin iyo aamus. but they just say si ka duwan sida kuwaan u dhahayaan ay u dhahayaan because their education ka dawaaya daraadiis. digriigii ay qaateen iyo jaamacaddii ay hadda ku jiraan iyo wixii hadda u socda waaya daraadood. but you odayadiina gararka waaweyn leh oo carabaha jooga, axmaqnimada carabaha ha iila imaanina. ani carab mihi. I'm African. I'm black African from East Africa. and then from Somalia. and then amina masuwi heliya cadow jinaqow calasow mi ihi aniga waxaa ka mid I'm not Arab. one laf oo korkayga oo caraba ma ku jirto, mana u aqoonsan inay ku jirto. so ha igula degdegina. carabnimadu islaamnimo ma aha. 100 carbaha iyo idinka jaraynaya idinka islaansanaha aniga. makarata ha igula degdegina. nagana joojiyo waxaase ma shaqaynayaan. 21st century ku jirnaa. qarniga 21 ku jirnaa. haddii idinka aad rabtaan inaad meel marisa annaga idin lema meel marin kartaan oo idinka diita. yurubaan ku noolnahay, muslimaanna, diinteenna kamaan bixin, isma qaawino, salaadeennan tukanaa, ilaahayaan ku xirannahay, dadkeennan u turaynaa, waddankeennan jecelnahay. intaan barafkaanala ku duugduugin oo noo wanaagsanaado. waxaan rabnaa dalkeena inaan ku noqono dhisano. to me waxaan rabaa waddankeyga inaan ku noqdo oo 2 arrin sameeya. I don't want to be politician. mar raba inaan siyaasad ka qayb qaato. 100 jeer hore sheegay. waxaan rabaa waddankeyga inaan ka sameeyo skill maker skill creation sameeya oo skillska xirfadaha dadka u sameeya. isbitaalo mental health-ga rabaa inaan sameeyo. waana sameynaa. maydka cafiya haddaan la idhin. haddaana aniga samaynina ciyaalkaygaan kaga dardaarmaya wayna samaynayaan. kasbaarinimo aan ku korsaday iyo nolol wanaagsan aan ku korsaday. way imaqlayaan wayna ixtiraamayaan dardaaranka hooyadood. saasaa rabaa aniga.
مرة أنا السياسة تسوق يقولون له إن أنا كقيب قال مرة أو نين والبحث أشغل شركة سعدي هذا هدو قالوا كسو دقايا أشغل شركة وسقيا أو أرايا أو سكلا لقى قبسنا كسو دقايا because ذاتك إيمانه إنه community أن كذا لنا أيا community أن إثنين أو هبعسن بلا يكو هبستي everybody gabdho badanaa ila soo xiriira wiilal badanaa ila soo xiriira oo meelo kala duwan jooga oo raba inaan ka wada shaqayno mental healthga everybody mar kale waxaa halkaa idinku leeyahay waxa igu walaahiya oo igu bilaahiya oo igu tallaahiya qof kasta oo soomaali ah oo wadata qaab aan kula kaga shaqayn karno oo aan mental health stigmaha kaga bixin karno dadkeena soomaalida inaan la shaqeeyo balan ay igu tahay balan ay igu tahay فهمت اسك إلا وحي وريسجي كجر وريسجي وحوا real life real people real life real people تاسع كنت ما أنا قودك أواجه قلبات سنة جوسن كلبات هذا يصعد من الشيء قيلي لكن وريسجي كسب سنين أنا هطلع أنا هذا العد وحور راعي هذا العد دعويها هذا العد composition ويدسا هذا المقدور راتساي أنا إجرتاتاس هذا ما هتاس ما هوش اسمها هوش هذا قبشة قربت هوش قبشة قربت وحواي gabdhahan masaakiintay wada ooyaya iyo wiilasha masaakiintay wada ooyaya in la caawiyo idin samaynaa insha allah one to one session xataa laydin samaynaa ani keli session midin siinaa laakiin dad kale xataa idin siinaa mental health professionals waxaan ku faraxsanaa inaan helay ugu yaraan 3 qof oo mental health professionals oo UK ila jooga aad iyo aad ugu faraxsanaa qaar North America jooga qaar jooga maxay ahaydone community workers oo jooga Europe inteeda kale aad ugu faraxsanahay Soomaaliya iska daaya siyaasadda iyo qoranka iska dhaf ani marka hadlaayada ayda siyaasadda ka bax siyaasad kuma jiro aniga shaqadeedii journalism ka wata because warbaahiya ah that's why I uga hadlaaya siyaasadda wasaas waa inay fahmt laakiin anu siyaasime mana raba laakiin waxa sameynaysiin waxa isku riixriixaysan iska daaya hawl kala idin taala oo ah bulsho ahaan ina isdhistaan bulsho ahaan ina maxay ahayd wixsan wallahi aniga ooyintii aan barnaamijku ooyaa gocashay ahayd xanuun hadda ahaaya ma ahayn iyo malaha booga yar yar weli ka dambeeya kuwii hore halkaa gudaha hoose iyo wadnaha hoostiisa iga yaalo idam qaay but laakiin midda ka sii daran waxa waaye Soomaalidii oo dhan oo wada ooyayso oo ku soo wacay xageena loo sitaa war xanuunada ha isku caayina war isu gargaara war waalidkoo gabdhihiinna aad nimanka siisana lacagta ka qaadateen ogaada nimanka qurbaha ka yaacayo gabdhaha yaryarka oo 15 jirada aad wadan ku silcinaysiin dhaafa I have so many victims ayaan hayaa oo noocaas ah iska dhaafa ilaahay ka cabsada منافقتنا اسكدايا منافق نمدا والمسلم هداتها إسلام نمدا كدقن هذيك الدين تا إلهي حقوق باريه اسكبح مهي كلو لغان رباءات لكن إسلام هداتها كدقن دين تو كدقن سيتا أو كدقن سيتا ما بيقول دقن مكرنا بني آدم أنه حيوة نقدع دعاية لكن السنة حريستا السنة حريستا أو السطورة إسدقيستا أو إسمقلا السقرابة أو إسكعان قبطة محكمات مني هنا أنك محكمات متهين لا بقى فتاي حتى كلا عبطة إذنكو إنا أو كلا قرصور ثان ما بقى هبا إذنكو حما أو كلا قرصون دادك إيغاس لبود بودا لكن قف كان إبكا الشيغانا أو قرابة قبلها مساكين تا أو هالك داء لغفري أما إلا هذا إبكا هايسا والله قبر باي قتري وحن ربي بايتري waxay degan tahay Yurub meel kamid ah waxaan rabay way tiri labadayda caruura 3 caruura ma tiri inaan inta gacanta ka qabsado dabaqa 7aad aan deganaa inaan iska tuuran rabay tiri daaqada ka baxo hadda dhawaa waxay sheegaysaa waa dhowr week 3 weeks ka hor waa aniga markii waraysigan aan qaybta koowaad aan sheeg camal waa markaas ilaahay cilmiyo tiri hadda markaan habar yar ku dhageystay baan ogaaday bay tiri inaan xanuunsana xitaa inaan xanuunsan tahay ma oga bal how painful is that حتى إني حنوسنتها موجو قبلها كلا واحد جوجا يوكي dhahayo dhakhtarka gabdhaha kale oo dadka ka shaqeynaya maaragtay mental health workers ka dhahayo isbitaalka ha nagu ballamin meel gaar ah noogu imo
maxaa dhacay isbitaalka anagoo sii galgalayna haddiina la arko ee xanuunsan yihiinaa nala dhahaa cudur unbay qabaanaa nala dhahaa bal kaban waxaas isbitaalkee laga cabsaa in la tago koos koo kaloo soomaaliya oo meelaha sigaar ku caba ama islaan meeshaas maraysaa ku arkaysa isbitaalkii baad sii galaysa inay ku dhahdaa la diidaa soo cibaaro ma aha soo cibaaro ma aha waadna ka wada simantiin ilaa north america cabaadaa kasoo yeerowha ana yurub leeb u malaynaayaba dadkan guryaha ku xiran ay sawd inay yurub keliya tahay waxaa u baahantihiin awood dadweyne do you ever had power of the people weligiin ma maqashaan awood dadweyne wax la dhahaa awoodda dadka ma maqashaan you need awoodda dadka u baahantiin and now asaaba u baahantiin as soon as possible right now u baahantiin awoodda dadka collective inaa noqotaana u baahantiin waxaa u baahantiin kiina lawyerka ah inuu sharciga xaggiisa idinka caawiyo waxaa u baahantiin kiina mental health ka shaqeeya inuu idinka caawiyo ka nutritionka ka shaqeeya dietka inuu idinka caawiyo waxaa u baahantihiin kan ka shaqeeya general practitionerka iyo cudurrada maaragtay skinka iyo dermatologyga inuu idin caawiyo waxaa u baahantiin every single caawinaada u baahantiin aan runtii sheegaya waxaad kula dardaarmaya waa ka baxayaa barnaamijka ilaa intaan dhaba maba rabe inaa hadlo laakiin waa idinla soo sheer garaynaa meesha caawinaada laga raadsanayo qaabka loo raadsanayo dad badan contactiska ahaayo oo dhan xataa dhaqaatiirta oo iga ballan qaadan inay dadka caawiyaan oo soomaaliya jooga maxayto qolyaha oo sharciga oo maxkamadaha iyo sharciga bos laga maarmi maayo maxkamadaha iyo sharciga ya ma laga maarmaayo iyagana sidoo kaleeto all over the world ama maxayto wadanka oo dhan waa isku dayaya inaa idin lasoo sheergaray anigana waxaa idin baahanaha caawinaadiina because dadkaas ma caawiyi karo haddii aan lays gargaarin oo idinka intiina kala aada ay gargaarina ma caawi karo ya ma caawiyi karo marka waxaan u baahanaa inaan iswada caawino marka iskeebaa jiri doona oo face to face session counseling session lagu samaynaayo waxaa jiri doona facebook group waxaa jiri doona facebook page maybe YouTube iska caadi qofka muuqaalka haddii lasoo duubo lasoo waxeynaa okay Asia anaa kusoo wacaayo I will call you thank you anaa kusoo wacaayo marka saas ogaada please formaa gelin doonaa pageka formkaas qofka soo buuxinaya qofka xanuunsanaya dan waxaa loo wareejinayaa escapeka then we will give them maxay utoon 1-to-1 Asia hadda maan kusoo qabtaa computer aan kaga jiraa ma garanayo saan kusoo qabto but maybe I don't know abaya computer aan kaga jiraaye maxay toon system kale iyo third part oo xaga aan isticmaaloyaa third part xaga isticmaaloyaa but maybe ina halkan ka soo codato codkaaga la ogaanayaa aan malaynaa codka ka waran Asia codkaaga keliya okay miya haddii aan telefoonka xaggiisa kaa soo waco okay haye waaye haye hadhow kusoo waca haye waaye haye thank you marka saas ogaada waa ka baxaya hadda khayr aan isku ognahay isu duceeya isna caawiya ballanteena waxaa waaya inaa isgargaartaan oo is caawisaan thank you very much wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu